waxaa ka mid ah midda dhiigga caadada qabta ama dhiigga dhalmada nifaaska. Iyagana waxaa laga rabaa inay qadeeyaan, way afurayaan, laakiin waxaa laga rabaa qado. maxaa iyadana u daliil ah qolkii Caaisha radiallahu canhaa ay tiraahday kunnaa na'muru biqadaa'i sawm walaa na'muru biqadaa'i salaa fi saxiixayn. nabiga calayhi salaatu salaam waxay tiri soonka iyuu na fari jiray inaan qadayno, ama salaada mana fari jirin inaan soo qadayno. si daraaddeed waa inaad soonka ay qadeeyaan. waxaa ka mid ah taa waayeelka da' ah ama waayeesha aysan karin inay soomaan aysan awoodin, ayagana waxaa u bannaan inay iska afuraan, laakiin waxaa ah dushooda inay maalin walba quudiyaan miskiin. xukmuhum xukmu lmariidi laa yurji shifaa'uhu. xukunkooda wuxuu noqonayaa midka jiran ee jiradiisa loo rajeynaynin inuu caafimaado, isku xukun mooyaan. waxay quudinayaan miskiin maalin walba ay quudinayaan. waxaa ka mid ah midda uurka sida ama midda nuujinaysa. iyagana waxaa u bannaan inay iska afuraan, nafteeda hadday u baqda markaas qada ayaa laasim ku ah inay qadayso lebis. ama hadday u baqdo waladkeeda waxaa laga rabaa qadana waa laga rabaa, inay miskiin quudisana waa laga rabaa. uurkooda iyo midda nuujinaysa hadday u baqaan naftooda qada ayaa laga rabaa. ama hadday u baqaan waladkooda qadana waa laga rabaa, miskiin inay quudiyaan waa laga rabaa. fasawaab allahu aclam.